muddooyinkii u dambeeyay waxa magaalooyinka dalka ku soo badanayay warshadaha soo saara biyaha la cabo kuwaasoo soo saara tiro aad u badan hase yeeshee waxaa dhibaato adag noqotay sidii xal loogu heli lahaa caagadaha maran ee biyuhu ka dhammaadeen ama laga cabay waxaanay noqdeen kuwo dhibaato adag ku haya deegaanka iyo bilicda magaalooyinka noqdayna qashinka ugu badan ee yaala meel kasta haddaba aqoon-yahan baashe xaji axmed quluumbe ayaa daraasad ballaadhan oo uu ku sameeyey waxa uu hindisay qorshe lagaga faa'iidaysanayo caagadaha biyuhu ka dhammaadeen ee qashinka loo daadiyo wuxuuna ka sameeyey dhismo guri hadda uu gacanta ku hayo oo laga samaynayo caagadahaasi manaanu booqanay dhismaha guriga laga dhisay caagadahaasi ayaanu kula kulanay aqoon-yahan baashe xaji axmed quluumbe waxaana ugu horreyn weydiinay waqtiga uu hindisay dhismaha gurigan uu ku samaynayo caagadaha biyuhu ka dhammaadeen muddo imika laga joogo ilaa 3 sano ayaan arkay ka faa'iidaysigooda waxaana had iyo jeer looga faa'iidaystaa maaha qaabka dhan uu dhistay hawlaha danta guud sida iskuulada isbitaalada waxaana ummadda uga faa'iideeyay maamuladooda dawladaha hoose marka imika waxaan jecelahay in hawshan waa hawshii dawladaha hoose in iyaguna ku baraarugaan inay uga faa'iideeyaan ummadda baashe daraasaadkan aad ku samaysay inaad hesho ka faa'iidayska caagadaha maran ee dhibaatada ku haya deegaanka iyo bilicda magaalooyinka imisay kugu qaadatay daraasaddu waxay ku qaadatay adigu muddo ilaa 3 sano ah laakiin waxaan ka gungaaray muddo imika laga joogo ilaa 6 bilood oo aan aniga laftaydu tijaabiyey halkan kumaan tijaabine beertaa kaba dheere oo aan ka dhisay aqal yar oo kooban oo tijaaba markii dambena waxaan ku dhiiraday inay gurigayga dul saaro kan ma jiraan dhismayaal kale oo aan ka lahayn adiguna ka wado inaad ka samaysato caagadaha haa way jiraan oo beerta waxaa la dabacsanayaa inaan guri weyn kaga dhiso halkan lafteeda bakhaaraan ka dhisaya haddii ilaahay ka dhigo oo bakhaaradayda suuqa dhexdooda aan doonaya inaan u bedelo wajahadahooda si ay u kordhiyaan bilicdooda dadkuna ugu daydo haa ma filaysaa in kharashkii ku bixi jiray guryaha ama dhismayaasha lacagta badan leh inay hoos u dhacayaan oo wax badan ka jabnaanayaan kuwii hore haa oo aniga imikaygagama jabno laakiin sida uga jabnaan lahayn lafteeda wejigeedii waynu haynaa waa la haya oo qof waloo aan xataa farsamo yaqaan ahayn isagu laftiisa u dhisan karo haa maxaad usoo jeedin lahayd dawladaha hoose ee u qaabilsan inay ururiyaan nadaafadda ama bilicda dhibta badan ku hayso caagadaha iyo dadweynuhu inay ka faa'iidaystaan caagadahan maran ee meelkiisa iska yaala waxaan usoo jeedin lahaa dawladaha hoose horta iyagu inaanay caagadahan qaadin oo qashinka ku qubin oo fogeyni intay ururiyaan inay meel dhigaan dabeedna ay ugaga faa'iideeyaan bulshada sidii ay ugu dhisi lahaayeen iskuullo isbitaallo degmada lafteeda iyo inta ay xukuntaba waayo waxa lagaga maarmayaa qalabka dhismaha qaaliga imika talbiisna uma baahna wax kalena uma baahna sideedaas lagu xarnayaa dabadeedii waad arkaysaa wajiguna ka sii qurux badan si ka sii qurux badan baa loo dhisi karaa marba marka ka dambaysa laakiin tan waa tijaabadii horeysay aad samayso waa tijaabadii ugu horeysay waxaan gurigayga uga bilaabaynaa meel sare ku yaalaa in ummaddu wada aragto imika bulshada qaybaheeda kala duwan cid walba meesha soo martaaba u eegataa dad badan baa imkaba bilaabay inay urursadaan si ay ugu daydaan qorshaha cusub ee loo helay caagadaha biyuhu ka dhammaadeen ayaa waxay kaloo shaqo abuur u noqdeen dhalinyaro badan kuwaasoo laga iibsanayo caagadaha maran ay ka soo ururiyaan goobaha qashinka lagana siisanayo qadar lacag ah waxayna tallaabadii noqonaysaa markii u horeysay ee xal loo helo caagadaha biyuhu ka dhammaadeen islamarkaana dhismii u horeysay ee guri caagada ka samaysan yihiin laga hirgeliyo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa markii u horeysay ee Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco laga dhiso ama laga sameeyo guri ama dhismo ka samaysan caagadaha biyuhu ka dhammaadaan kuwaasoo dhibaato badan ku haysay deegaanka iyo bilicda magaalooyinka waxaana noqonaysaa markii u horeysay ee xal loo helo in laga faa'iidaysto caagadaha maran ee biyuhu ka dhammaadaan Kays Axmed Dagaale SAB TV Burco.